السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين halkani waa Xasan Cige Cusmaan YouTube officialka oo aad nooga barateen inaan dhawaanahan baadiyo soo gudbino warar kala duwan oo aan ugu talagalay in daawadayaasheenu ay akhbaarad kala duwan aan ku siino qodobada ugu waaweyn ee haynana waxa kamid ah xiriirka kubadda cagta deegaanka Soomaalida oo gudoomiyaha madaxweyne loo doortay Xaaji Mataan oo hore u ahaa dadkii dhibaatada ka soo gaadhay maamulkii hore isla markaana dhawaanaha xilal kala duwan dawladda ka qabtay iyo isagoo horena u ahaan jiray hogaankii nabadgelyada ee maamulka magaalada Jigjiga qodobada kalena waxa kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa warmurtiyeed ka soo saartay xayiraadda dhanka fiisa ku galka ee dawladda Mareykanka ay ku soo rogtay saraakiisha sarsare ee dalka Itoobiya iyadoo sheegtay in go'aankaasi uusan ahayn mid aan habboonayn warmurtiyeedka wasaaraddu ay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in dawladda Mareykanku ay cadaadis ku saarayso dalka Itoobiya inay maartay arrimaha gudaha ay fargelin ku samayso wasaaraddu waxa ay sheegtay in go'aankan ku soo beegmay xilli loo diyaar garoobay doorashada lixaad ee dalka isla markaana la filayo in guul laga soo hooyo isla markaana go'aankan xayiraadda dhanka dalku galka ee dawladda Mareykanku ay madaxda ku soo rogtay oo yahay mid gaf ku ah madaxda dalka iyo hawlaha kala duwan ee isbeddelka ka socda hay'adda lacagaha yaryar ee deegaanka Oromiya ayaa u diga rogatay bangi loogu magac daray Sinqe Bank hay'addan oo 24 sano la soo dhaafay ka shaqeynaysa deegaankaasi waxay leedahay 400 oo laamood bangigan cusub ayaa lagu aasaasay ra'iisul maaldan 7 bilyan oo bir waxaana haysta hanti gaaraysa ilaa 15 bilyan oo bir munaasabadda hadaba lagu shaacinayay bangigan cusub ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ugu horeeyay madaxweynaha deegaankaasi Shimalis Abdisa haddaba dhanka deegaanka Soomaalida markaan eegno hay'adda Soomaaliya Microfinance ay wadi u dambeysay waxay dhaqdhaqaaq xooggan ugu jirtay sidii ayaduna bangi ugu diga rogan lahayd gaar ahaan Shabeella Bank dhawaana boardka iyo xubnaha saamilayda ee bangigaasi ayaa shiray iyadoo oo la filayo in dhawaan ay hawshaasi dhaqaaqdo xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in uu si gaar ah u diyaarsanayo manhajka waxbarashada ee fasalada 1 ilaa 8 manhajkan oo hadda ka hor ahaa si guud dalka loogu diyaarin jiray ayaa dhibaatooyinka badan aqoonyahanka ka soo jeediyaan waxa kamid ah faltusmeedyada iyo magacda iyo waliba sheekooyinka kala duwan oo aan badan ku saleysnayn dhaqanada kala duwan ee qoomiyadaha iyo shucuubaha iyadoo oo siiba casharada qaarkood magacaanta ku dhex jira casharada kala duwan sida luqadaha Ingiriiska oo kale ay tahay magacaan aan qoomiyada Soomaalida magacdooda aan badan laga dhaxarag haddaba xafiiska waxbarashada ayaa waxa uu sheegay intani ay tahay guul soo haytay deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo in manhajka waxbarashada lagu diyaariyo deegaanka Soomaalida isla markaana lagu saleeyo dhaqanka iyo hidaha deegaanka Soomaalida agaasimaha guud ee manhajka wasaaradda waxbarashada dalka Dr. Teros ayuu la hadlay warbaahinta SRTV ayaa waxa uu sheegay in munaasabadan ay ka soo qayb galeen ay wax badan ka bedelayso habkii loo diyaarinayay manhajka dugsiyada hoose oo aan waafaqsaneyn dhaqanka bulshada deegaanka sida awgeedna in si dhaqso ah loo diyaarinayo manhajkan oo qorshuhu yahay in 2014 lagu bilaabo dhagiisa isaguna Maxamed Cabdi Aadan oo agaasinka waaxda waxbarashada ee manhajka ugu qaabilsan xafiiska waxbarashada waxa uu sheegay in la diyaarinayo 52 buug oo ka kooban 9 maado oo KG ama dugsiga barbaarinta ilaa fasalka 8aad ah warkan maanta idin haynaa intaas uu naga idin yahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho xogo kala duwan oo dalka iyo deegaankaba ku saabsan